horta bahdilku waa akhlaaq xun, calaqaat almasmuuma waa dhaqamada xun ee qofka muslimka inuu ka fogaado loo baahan yahay. bahdilka, jaasjaaska, xaqiraada iyo sida kulli waa calaaqaat almasmuuma, dhaqanka sunta ah ama xun ee foosha xun ee la rabin qofka inuu qof kale kula dhaqmo. marka haddii labadii lamaanood midka kale uu kula dhaqmo tabahdul, inuu bahdilo oo maxay ahayd xaqiro oo qof aan qiimo lahayn uu kasoo qaado qofka kaleento, maxaa dhacayo? haddaan ka bilowno gabadha inay ninkeeda dhulka ku jiido oo qof aan qiimo lahayn ay ka dhigto oy bahdisho, marka ilmuhu waxay la caadifoonayaan aabahooda la caadifoonayaan oo maxay ahayd aabihii hooyadii markay arkaan matalan hooyo iska wareegayso oo waqtigeeda dhan ku dhumisay, wareeg ku dhumisay ama aroos ku dhumisay ama maqnaansho fara badan ku dhumisay ama ilmihii dayacday ama asagii dayacday, markaa asagii markaas uu halkaa ku bahdilmado oo xuquuqdiisii gaar ahaan markay gabdhaha ilmahooda bataan matalan ama ilmaheeda rag u bataan oo caruurteeda rag ay wada noqdaan ama maxay ahayd ilmaheeda ay bataan israado aabihii kuma furi karo inay markaa dulmi ku dhaqaaqdo oo aabihii maxay ahayd dhulka ku jiito ayadoo ka dagaalamayso in maxay ahayd ama reer kale uu aaday ama reer kale inuu samaysan rabto. markaa taas waxaa ka dhalaysa markaa caruurtii inay iyada kusoo jeestaan markaa dhow oo caruurtii aabaha la caadifoodaan, halkaasna markaa iyada maxay ahayd ay ku noqoto hooyo maxay ahayd loo careysan yahay ama loo maxay ahayd colaad loo qaado. haddii asaga uu kula dhaqmo sidoo kaleento, hadduu asaga kula dhaqmo oo gabadhii uu maxay ahayd ilmaha hortooda ama uu ku caayo ama uu ku yeeso ama uu ku canaanto ama maanta dhan khaladaadkeeda uu daba galo uu daba ordo, ilmihii sidoo kaleento hooyada la caadifoonayaan. waa mid Soomaalida dhahaan ilmo hindow, markaas oo markaa hooyadii markaa u hiiloodaan ay aabihii ku caasiyaan oo aabihii ku caasiyaan, labadaba waa qalad. markaa labadaba waa qalad. labada qofood ilmaha hortooda waxaa ku haboon inay isku ixtiraamaan. caruurtan aa wada dhasheen kulliga waa mustaqbal, labadiinaba aa wada fiirsanaysaan, adigana xaqaa ku leedahay aabanimo oo maxay ahayd noloshoodii iyo maxay ahayd dhaqaalahoodii, masruufkoodii iyo nafaqadoodiiba ilaahay kugu waajibiyey ood ku maqan tahay. ayadana sidoo kaleenta hooyanimo ay ku leeyihiin oo aabihii hooyadii 3 jeer ka xaq badan tahay, ayadana sidoo kaleenta inuu ugu dhibriyo kuna ixtiraamo. marka ilmaha hooyadiis ilmaha hadduu xataa isnacsan yihiin ama is dhibsanayaan inuusan ilmaha hortooda ku canaanan, ilmaha hortooda hadal qaloocan uusan ku dhihin, ilmaha hortooda inuusan ku yasin, ilmaha hortooda inuusan ku bahdilin. marka taas labadooda marka iyo sharaf u wada tahay oo caruurtii marka xataa colaadda dhexdeena taalo ama ayadaa dhibsanaysa fa in karihtumuuhunna facasa an takrahu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran kathiira. haddaad dhibsataan waxaa laga yaabaa wax aad dhibsanaysid ilaahay uu khayr kuu geliyey oo ilmaheeda ama ilmo baraka la wada noqdaan ama xataa mid fiican oo ku maxay hata hadhow beri aad ku naalooto oo ku faraxdo oo ilaahay dhabarkeeda ka keeno. marka ma wanaagsano labada qofood inay iskula dhaqmaan bahdil isku dhaqmaan, midkood midka kale bahdilo, marka hadhow caruurtii ay la caadifoodaan kan la bahdilay. haddii aabihii la bahdilay inay aabaha la caadifoodaan oo hooyadii kusoo jeestaan, haddii hooyadii la bahdilin ay hooyadii la caadifoodaan oo aabihii kusoo jeestaan oo calaad u qaadaan. labadaba waa qalad. marka maxaa la gudboon? waxaa la gudboon ixtiraam, inay ixtiraam iskula dhaqmaan. hataa hadday isnacsan yihiin aysan colaada caruurta u gudbin, hooyadana xaq uma leh inay aabaha bahdisho, aabahana xaq uma leh inuu hooyada bahdilo. laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun biwaladih. hooyana ilmaheeda laguma dhibi karo, aabana ilmihiisa laguma dhibi karo. marka labadaba marka maxaa ixtiraam. haddii marka ilmihii waxay ka message waxay qaadanayaan haddii aad bahdil iskula dhaqantaan hadhow fariiq qaldan oo tarbiya u gudbiseen labadiinaba. haddii aabba wax bahdilo hooyadii marka ilmihii waxay kaa nuugayaan usluub qaldan ee hadhow markay beri reero yeeshaan oo gabadha reer yeelato ama wiilka reer yeesho dhaqankii foosha xumaa waa la soconaya, ilmihii waa la soconaya, waa saameynaya. laakiin haddaad is ixtiraamtaan oo qofka kalenta ixtiraamo oo khilaafaadkiina iyo wax dhexdiina yaal oo qolka jiifka soo dhaafin, caruurta waxay ku barbaarayaan nolol sacaado ah oo farxad ku dhisan oo alla ka cabsi ku dhisan iyo asluub wanaagsan oo maxay ahayd ay ka dhaxlayaan waalidkood. because akhlaaqda fiican gurigay ka imaadaa iyo hooyada iyo aabaha oo si wanaagsan iskula dhaqmaayo xataa haddii la isneceb yahay, xataa haddii la isdhibsanayo, xataa haddii qof kalenta inaysan ilmaha gaarin. wax dhexdiina yaala caruurta shaqo kuma leh. marka waxaa la rabaa asluub wanaagsan inay ilmaha idinka nuugaan, inay ilmaha idinka bartaan oo maxay ahayd asluub ixtiraam ku dhisan iyo caadifad iyo naxariis ku dhisan oo sida islaam maxay ahayd mawada wa raxma
marka sida quraanka u sheegay mawadda marka jacayl ayaa ma hore la jecel la xisaana laakiin hadda markii dambe oo reerada ilmo la dhalo oo la maxay tacaruur koris la galo naxariisa raba in lagu wada joogo naxariisa raba in lagu joogo midba midka kale uu sanbahdilin midba mid kale uu dhamriyo oo ixtiraamo oo uu cizeeyo markii aabii hadlo hooyada inay amar ka daba tuurin hooyada markay fikir iyo aragti soo dhiibto aabii inuu fikir ku hooyada ku qadariyo markaas aruurtu waxay calaaqaatul mahmuud adabtii mahmuudka maxameeto iyo ilmaha inay ka dhaxlayaan marka taas cagsigeeda aysan noqon caruurtiina hadhow message qaldan inay qaataan dadka kalena hadhow saasay kula dhaqmayaan marka noqda laba waalid oo is ixtiraamo oo isla caadifooda oo aan maxay hayto midba midka kale uusan bahdinin